Wayne Rooney oo si lama filaan ah u magacaabay xidiga ugu fiican Manchester United xilli ciyaareedkan. Xilliga Manchester United Wayne Rooney ayaa u magacaabay Bryan Mbeumo ciyaaryahanka ugu fiican kooxda xilli ciyaareedkan, isagoo qirtay in weeraryahanka reer Cameroon uu ka dhigay mid qaldan. Tan iyo markii uu yimid Old Trafford xagaagan, Manchester United ayaa Mbeumo kula soo wareegtay lacag dhan 65 milyan oo pound, waxaana 26 jirkaan uu dhaliyay gool muhiim ah kulankii ay 2-1 kaga adkaadeen Liverpool xalay. Rooney oo la hadlay BBC podcast ayaa yiri: "Aniga ahaan Mbeumo wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu muuqda kooxda Manchester United xilli ciyaareedkan. Inkasta oo uu shaqo adag qabtay, weli si buuxda looma abaalmarin dadaalkiisa. Kadib adkaysi badan oo uu sameeyay kooxda, goolkii uu dhaliyay wuxuu ahaa mid heer sare ah. Si daacad ah haddii aan u hadlo, markii hore waan shakiyay markii Man United ay la soo seexatay. Ma hubin inuu heerkaas la jaan qaadi karo, laakiin wuxuu iga dhigay mid qaldan. Wuxuu noqday xoojinta ugu fiican ee kooxda, waana ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee Manchester United xilli ciyaareedkan ilaa hadda." Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.